habaar waalid anigaa qabo isku huba ma hadhsado wuu leeyahy wax kale ma leh waxaa la ii sheegay inuu dareewal ahaa baan yaro weydiiyey wakhti dambe dareewal gawaadhida waaweyn ee inatareeda la ohan jiray ee dhuxusha gobollada dhexe ka qaadi jiray koonfurta u qaadi jiray ayuu ahaa aabbihii oo baahan oo abaari hayso oo aradan ayaa u yimid isagoo gaadhigii ku jooga wada ninkaa gaadhiga kala jiidan wata way u kala caddahay barwaaqaduu ahaa markaasuu intuu gidaar fadhiisiyo la ballamay buu uga baxay odaygi maanta oo dhan ba ha sugo ha ku soo laba jeer noqdo goor dambe oo gabalkii sii dhici doonay baa la yidhi kee salaaddii duhur ka hor buu tegey habaarkaasaa ku dhacay adduunyadaa wuxuu isagoo dee sidaa u khariban oo baaba'san ayaa dagaalkii waddanka ka dhacay ma jiro dhintay iminka in kale qof aan qaraabanahay wuxuu iiga sheekeeyo hadda dhintay xilli abaara buu yidhi ama jiilaal oo xilliguu yaro adag yahay ayaa waxaa dhacday aabbahayo buu yidhi ayaa ninkii noogu weynaa ama raggii waaweynaa nin ka mid a ayuu yidhi orodoo awrkaa kaxeeyo hargahaana qaadoo soo iibiyo reerka raashin u soo sii awrkii buu soo kaxeeyey hargihiina waa soo qaaday ninku wuxuu ciyaaraa turubka khamaarku aad ugu dheerayn jiray waxa balwadnan waa balaayo meel un bahalkii lagu ciyaarayuu soo galay turubkii dabeetana turubkii wax ka ciyaaray khamaarkii wixii markaa uu hayey waa laga helay hargihii loo soo dhiibay buu dhigtay waa laga helay heeryadii awrkuu dhigtay waa laga helay ninkii baa la waayey 2 cisho reerkii waa yaabeen dabeetana waa la isweydiiyo odaygii aqalkii miyigu joogaa war ninkii hebelaa ma aragteen awrkaagii baa magaalada kulley geed ku xidhnaayoo caddaysimo ah inankiina wixii waxaa naloo sheegay inuu yaro khamaar iyo intu wax ku ciyaaray wixiiba laga helay wuxuu la soo guriya tago ayuu waayey qofkan qaraabadana iga sheekeynaya wuxuu igu yidhi sidaasuu u eegay buu yidhi waddada suuq waddadii magaalada u kacaysay buu saa u eegay odaygii markaasuu wuxuu yidhi ilaahay waxaan ka baryey adigoo feera qaawan oo sarwaal dabagaaba xidhan oo dhangadaad awrka ku kaxaysay gacanta ku sita halkaa inaad ka soo gasho halkaana labada low iyo surka isku jabsato naftu kaaga baxda buu yidhi galabtii ku 3 ahayd ayuu waddadii ka soo galay isagoo feera qaawan oo dhangadii awrka uu ku kaxeeyey wata oo dabagaab xidhan fiirso habaarka waalidku noqon karaya maaha siduu u soo socday buu yidhi ayuu ardaagii aqalkii hooyaday ayuu fadhiistay buu yidhi wuu kada loobsaday garhka iyo labada low buu isgeliyey waa la kiciyaa waa la fadhiisiyaa waa ku soo noqdaa wax ma cuno ma cabo ma hadlo galabtii ku 3 naftaa ka baxday buu yidhi khatar cadiim weli aabbahay hooyadu way kala duwan yihiin hooyadu waxaa laga yaabaa in waxeedu hadal isaga bato aabbuhu hadduu afka kala qaado waa khalas cadiim waxaan leenahay marka in waalidka la iska ilaaliyo wax badan baa rasuulku ka warramay waxaa dhacday nin injineer oo aanu isnaqaana ii warramay maalin intuu qabsin baa laga qalay dhakhtarku galay wuxuu igu yidhi dhakhtarka anigoo ku jira waadhka qolka ay sariiruhu yaallaan nin odayaa hurda buu yidhi docdayda ninkaasi cidi uma timaado wax uma keento ma soo booqato cidda aniga ii timaada ee isoo booqata ayuu lacag yar u dhiibaayo wuxuu yidhaahdaa koob caana ah ii soo sii nafar beriisa ii keen caynkaasuu yidhaahdaa cishadii dambaan waxaan ku idhi adeer miyaan cidi kuu deganayn magaalada cid ku soo booqanaysa maan arage odaygii ilmaa ka soo daadatay buu indhihiisa waa ilmeeyey markaasaan daayay buu yidhi bal ilmadiisa ha dhammaysto markaasuu igu yidhi adeer cidi ii iman mayso markaasaan ku yidhi maxaa dhacay adeer inan aan dhalayna magaalada lagu qabaayo way joogtaa mid kalena wuu joogaa laakiin ii iman maayo oo anigaa hooyaday cidlo kaga tegey markaasuu iiga sheekeeyey buu yidhi wuxuu yidhi meel baanu niilnay tuulo ah gawaadhida berbere ka timaada ee xaggaa iyo muqdisho ku socota ayaana soo mari jirtay dadku way raacaanoo waa waagii dowladdu isku dhisnaydoo muqdishaa la qabtaayo xamar buu hebel qabtay xamar buu aaday waxaanse warniyow islaantan keligay baa tuulada ku haya islaanta
ورسلانتن ku habsaantay asaagaa tagi casumadii baa la galay orodoo de adna meesha ka tag cishadii dambe buu yiri ayaa waxaan soo qaaday wax yaro subaga iyo in caana ah iyo waxoogaa lacaga markaasaan soo agdhigo hooyo weelkana waa caano waa kuu keenay cab subagana ada iskale lacagtana hooyo ada iskale kasir hooyo miyaad iga tagaysaa markaas may hooyo ka tagi maayo waana beentayo waa ka tagayaa bur kadinkan ka baxayo gaarigiyo taagan baan ku dhacay bur xamar baan galay bur waaba iska ilaawayo caasimadii baa iliqdayba dhowr sanadood kadib ayaan ceel gaabta anigoo maraya oday kamida dadkii deegaanka iga hor yimi markaasaan salaam markaas in kaari kugu dhacday war ma kii waalidkii cidla kaga tagay baa adeer islaantii iga waran war maxaa islaantii kaaga waran waa dayacantay muslimkii meesha deganaaba islaantii aasay walla in kaar baad qabtaa faa'iidi maysid soo ninka hooyada cidla kaga tagay ma tihid wuxuu yiri ubadaan dhalay iiman maayo ana hooyada cidla kaga tagay koobkan caanaha ah iyo nafarkan bariiska ah waxa yare aan siisanayo waa intii aan maalintii agdhigay buu haddii aanan maalintii intaa agdhigeen maanta xanuun iyo gaajaan u baktin lahaa buu laakiin koobkan yare caanaha aan lacagta inaan dirsanayo iyo nafarkan bariiska iyo cadkan yariyo waa waxoogaagii aan maalintii aan tegayay aan kaga tegay waxaanu leenahay dadkeenan meesha isugu yimi waxaanu ka koobannahay hooyooyin iyo aabbayaal waxaanu ka koobannahay kuwa kuraya ah oo iminka soo kacay oo la dhalay oo hooyo aabba loo yahay waxaan leeyahay waalidka waaweyn aabbayaasha iyo hooyooyinku ninkii waalidkii nool yahayow wallaahi jannadaadii waa nooshahay ninkii waalidkii nool yahayow jannadaadii waad haysataa ka faa'iidayso haddaad janno doonaysid ka faa'iidayso waxaan leeyahay ubadka ninkii waalidkii dhintayow ducada maanta aabbahaa waa dhintay ama hooyadaa baa dhimatay ama labadiiba waa tageen xabaal bay ku jiraan raashinkaama rabaan oo lacag kaa dooni maayaan aad u dirto oo marya kaa dooni maayaan oo aqal ay galaan kaa dooni maayaan oo waxkaba ay xidhaan iyo biyo kaa dooni maayaan ducay kaa rabaan iyo sadaqa jaari ah war ma intaasaan u awoodi karin qabri buu ku jiraa ducuu kaa rabaa keliya rabbi ighfir lii waliwaalidaya warxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira duco iyo sadaqa jaariya inaad u samayso xabad cadaya midh cadaya waa 1,000 shilin ama waa 2,000 oo laana waad soo iibiso 5 cad ka dhigto waad tiri hooyo gee masaajidka muslimiinta ku cadayneen waa sadaqatu lilwaalid xabad cadara waa 4,000 shilin oo kuwa yar ama 5,000 shilina atira qaado musalliinta marmari masaajidka waa sadaqad waalidkay waa sadaqa koob biyaad bixiso koob shaah koob caana ka badan ka yar waa sadaqa lilwaalid sadaqadu yar yaraan ma leh